السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتم الودنيا كجوتان كسر هذا مركلي شاعية أكاديمي شاعية أكاديمية مع شاعية جنسي وحاوي بلاتفورم مروا الباب بالشديد السكرية فرصة الدنيا كبرنا ده حالة كرسينا ده حالة سكولرشيبس أما ده حالة حالة في زوين كي حوالي متكا صدق كلا برنامج ده مسيرفيس قبل بالشديد نقبل وحاكم ده حالة سكولرشيب ده حالة الله المستعان fiisooyinka sida fiisa Schengen oo fiiso ku soo regelinaya wadamada Yurub oo idil inaad ku tagto si tourist ahaan ku tagto ama dalxiis ahaan ku tagto sidoo kale bulshada waxaan ka caawinaa service ka caawin waxa kale kamid ah sameynta ama qorista CV-ga iyo application letter waliba high quality ah iyo diyaarinta buugaagta research-ka ama buugaagta qalinjabinta ardayda inta badan ka caawinaa haddaba maanta fursadaas oo bandhignay waxaa loo yaqaanaa Young Leaders Program oo ka dhici doona dalka Mareykanka dhici doona barnaamijkan waa barnaamij loogu talagalay hogaamiyaasha da'da yar in maxaa la yiraahdaa program ka faa'iideysanayaan lagu qaban doona dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada New York iyo magaalooyin badan oo dalka Mareykanka lagu qaban doono wax khidmad ama lacag qofka laga doonayo hab yaraatee ma jiro si bilaash ama si free ayuu ku xareysan karaa haddii qofku doonayo si wax faahfaahin aan akhrisan uu doonayo si toos ah halkan ugu dhufan doona halkan ayuu ka xariisan doona faahfaahintiisa adeenu wax yar ka taabano magaalada lagu qabanayo waddanka Mareykanka gaar ahaan magaalada New York magaalooyin kale way jiraan MCW organization leeyahay ayaa wuxuu yahay organization donorka ah ama maalgelinaya shuruudaha laga doonayo qofka adeenu isla eegno muddada 12 bilood ayuu fursadan xisaab 12 bilood ayaa loo train garin doona waynu isla doonaa waxyaabo qofka ka qabanayo wadamada loo geliyo wadamo badan oo Carabeed baa ku jira Soomaaliyana way kamid tahay sida halkan ugu jirno xasuusin adeenu isla fiirama fiira gaara shuruud luqadeed qofka laga doonayo ma jiraan sidoo kale ma jiraan qarash maxaa la yiraahdaa laga doonayo kharash oo ku aadan xareynta iyo codsiga ku aadan xabiirati midna ma jiro haddaba qofku muxuu faa'iideeyaa waxyaabo badan oo faa'iido baa jira sida tigidhkii oo free ah oo laga bixin doono dhaqdhaqaaqii iyo maxaa la yiraahdaa socdaalkii Mareykanka ku sameeyo waxaa kaloo heli doonaa hoy bilaash iyo cunadii waxaas idil free bay qofku u yihiin sida loo codsanayaa qofka waxaa laga doonayaa markuu application-ka markuu halka meesha ku qorto markuu qurufta kadib waxaa laga doonayaa inuu iska diiwaan geliyo number 1 kadibna uu buuxiyo faahfaahinta meesha ku qoran inuu buuxiyo ayaa laga doonayaa haddaba shuruudaha isdiiwaangelinta qofku markuu isdiiwaangelinayo shuruudaha laga doonayo maxaa kamid ah shuruudaha ugu muhiimsan waxaa kamid ah inuu qofka da'diisu u dhaxayso 18 ilaa 20 inuu luqadda Ingiriiskana si wanaagsan u fahmayo ayaa muhiim ah sidoo kale waxaa laga doonayaa inuu awood u leeyahay inuu muujiyo sida uga go'anta waxqabadka bulshadiisa programkan waxaa loo diyaariyaa dadka leaderska doonaya bulshadooda inay wax ku soo celiyaan sadarteed waa inuu qofku muujiyaa inay ka go'anta bulshadiisa waxqabad inuu soo bandhigo sidoo kale waa inuu awood u leeyahay inuu dhameystiro qiimeynta maxaa la yiraahdaa inuu dhameystiro qiimeynta baahiyaha bulshada u aqoonsado mashaariicda bulshada ee dhinaca waxbarashada caafimaadka ama amniga u baahan yihiin tusaale qofka waxaa laga doonayaa fikir inuu leeyahay fikirkaas ku aadan imaa dhaqaalaha imaa waxbarashada imaa caafimaadka imaa amniga guud aragti ku aadan ee aad doonaysa inaad horumariso miyay jirtaa waxaa way jirtaa aragtidaas unbaa soo bandhigaysaa aragtidaadii aad soo bandhigta ayaa lagu maalgelin doonaa weliba lagu training garayn doonaa haddii aad muujiso inaad tahay qof maxaa la yidhahdaa ka soo bixi karaa arrintaasi waaya haddaba maxaa halkan haddii qof ku rufto wuxuu ka arki doonaa official website-ka lagu qoray qoraalka kan ayuu halkan ka heli doonaa sidoo kale apply yourself haddii halkan ku ruftana isaga ayuu qofka apply garayn doonaa laftiisa ayuu apply garaysan doonaa hadduu halkan ku rufta ama halkan ku ruftana annaga ayaynu ka caawin doonaa xareynta application-kan tusaale halkan ayuu ku ruftay qofkii read by yourself baa la tusaale ahaan kale apply by yourself isaga ayuu wuxuu doortay inuu isaga naftiisa apply gareeyo oo fursadaha xareysa ayuu doortay waxaan isla arki doonaa insha allahu tacaala sida ay noqon karto xareyntii iyo programkaas sida noqon doonto waayahay halkaa markaa caadi markay taa waxaa soo bixi doona gmailkii iyo passwordka iyo qofka geli doonaa gmailkaas iyo passwordka markuu qofka u geliyo waxaa leeyahay doonaa confirm garay waxaa gmailka loogu soo diri doonaa confirmne ida markuu confirm gmail ka soo dhaho ayuu applicationkiisa si toos ah u iman doonaa haddaba applications markuu si toos imaado waxaa laga doonayaa qodobada tan aad gabadhan waa gabar naga codsatay Aamina Usmaan Yeelada waa gabar naga codsatay inaan u xareeno
fursadda tanina waxa naga codsato wey haddaba maxaa laga doonayaa qofka markuu xareysanayo maxaa laga doonayaa waxaa laga doonaya qodobadan soo socda guud ahaan general information logistic and cost ku bixi kara programkaas uu xareysanayo participant information soo ku saabsan contract and legacy iyo waxaan maxaan yiraahdaa iyo sugnaanshihiisa person isa inuu ka qoro qoraal inuu ka qoro kadibna applicationkiisa qofku markaa uu soo gudbiyo ayaa laga doonayaa waxaanu saaki doonaa marka general information iyo habka sida ay noqonayaan ayaanu saaki doonaa insha allahu tacaala way intaanu guda gelin programka waxyaabaha gaarka qofka loogu doonayo maxaa ka mid ah si waxaan leeyahay young leaders fellowship si taxadar loo aqri qoraalkan waa program loogu talagalay dadka leaderska da'dooda u dhaxaysa 18 jir ilaa 60 jir adduunka idil meesha doonayaan ka joogaane kuwaasoo doonaya inay u soo bandhigaan bulshadooda mashaariic inay fuliyaan doonaya mashaariicdaas oo ah ku aadan ama aqoontii waxbarashadii horumariya doonaya ama caafimaadka horumariya doonaya ama economic security ama amniga dhaqaale doonaya inay horumariyaan hadiiba ay jirto intaas shay qofka fikrada maaragta uu ka haysto jans ayuu wuxuu haysaa inuu soo bandhigo kadibna loo maalgeliyo loo horumariyo ayuu jans markaa u haystaa haddaba programkan waa program bedelaya aragtidaas qofkii aaminsanaa inuu aqoon u helo aragtidiisa meesha kusoo bandhigana helo haddaba maxaa laga doonaya community needs assessment marduureyn waxaa la samayn doonaa bisha koowaad markuu halkaa qofka tago waxaa la samayn doonaa community needs assessment baahiyaha community ka jira ayaa waxaa lagu samayn doonaa assessment daraasadan waxay socon doontaa muddo bil ah ayay waxay socon doontaa assessmentgaasi kadibna wuxuu baran doonaa ama meesha ku qaadan doonaa vision planning and project development sideeba projectigii ama mashruucii qofkan aaminsanaa sida loo horumari lahaa ayuu qofku baran doonaa 10 days ay programka isna socon doonaa sidoo kale wuxuu baran doonaa project implementation projectigii habkii loo fuli lahaa haddii aanu ka soo hadalnay number 1 hadaynu ka soo hadalnay qiimeyntii kadibna qorshayntiinu sameynay waxaa ku xigday hirgelintii iyo fulintii baa ku xiga haddaba siduu u fulin lahaa programka kan waxaa weeye waa laga caawin doonaa waxaana caawin doonaa dad hore meesha ka qalin jabiyay programmii mashaariic fuliya ayaana caawin doonaa 10 months ay programkan isagana socon doonaa haddaba eligibility requirement qofka looga baahan maxaa ka mid ah waxaa laga baahan yahay qofka number 1 inuu soo bandhigo ama uu sharaxo commitment to their community inay ka go'an tahay bulshadiisa waxqabad qofka inuu qabto waxaa laga doonaya mashruuc bulshadaas ay u baahan tahay inuu soo bandhigo areadan education inay noqoto ama health inay noqoto ama economic security ama amniga dhaqaale intaba ha noqoto waxaa laga doonayaa 18 jir ilaa 60 jir inuu u dhaxeeyo sanadu markay tahay marka la baxayo waa June ayaa la qaadi doonaa 1 June ayaa la qaadi doonaa 2023 hadduu allid maxaan salaaka doonaa sidoo kale in laga doonayo in luqadu ku wanaagsan yahay programmada sida u dhici lahayn baa halkan kaga hadlaya waxaanu halkan ku arki doonaa insha Allah taala iyadana 2023 timeline-ka ama nidaamka sidoo noqon doona haddaba average 10 October ilaa ayuu programkan soo bilowday wuxuuna xirmi doonaa 18 November ayuu xirmi doonaa December 8 oo bisha 28 waxaa la shaacin doonaa dadku ugu horeeyay la go'aansada ayaa la shaacin doonaa shortlist ku soo baxay keenayd ku soo baxay la shaacin doonaa 18 toban kadib December waxaa la shaacin doonaa wareeg labaad dadku ku soo baxay 9 ilaa 18 bisha koobaad ee 2023 interview ayaa waxay la yeelan doonaa Almuni oo shirkadda caawin doonta in project ama mashruucaas u fuliyaan ama habka u fulin lahaayeen January 20keedana waxaa loo soo diri doonaa aqbalaadii ee qofka loo soo diri doonaa acceptance waa loo soo diri doonaa confirmation of acceptance in February ama 7 bisha week kadibna in la confirm gareeyo loo soo diri doonaa sidoo kale February 10 waxaa loo soo diri doonaa fiisii qofkii la aqbalay interview qofku mari doona June koodeedana meesha ayuu tagi doonaa insha Allah taala muddadaas diyaarinta ay geli doonaan June koodeeda waxaa bilaaban doona daraasadii ay bilaaban doontaa halka ay daraasadaas ku June koodeeda ku qaadan doonaa needs assessment sida loo qiimeeyo bulshadiisa 11 July ilaa sanadka kale 20 July ilaa 20 July wuxuu meesha qofku barado in-person training buu meesha ku qaadan doonaa magaalooyin ku qaadan doonaa waxa weeye New York iyo Burlington oo magaalo ku taala Mareykanka iyo Vermont oo magaalooyin Mareykan ku yaala ayaa laga doonayaa haddaba haddii aad isleedahay waa buuxin kartaa kadib waxay imaan doontaa in application-ka fuliso waxa laga doonayaa application marka xareysanayso
general information guud baa lagaa doonayaa sidoo kale essay question inaan qorto xog inaan ka qorto programkaas aad diyaarinayso xogtaas ka qoraysana waa inaad ku caddaysaa number one identify garaysa waa inaad caddaysaa issue dhibaato haysato bulshadaada dhibaatadaasoo ku aadan adiga aad danaynaysan wax ka qabato dhibaatada saddexda meelood ku aadan ee aad danaynayso ma jirtaa Soomaaliya a lot of problems baa ka jira a lot of section oo qofka wajihi karo in wax ka bedelana way jiraan haddaba sideeba programkaas u wajihi kartaa qodobka labaad oo kale waa inaad sharaxdaa isagaaga ama xogtaada soo bandhigideeda waa inaad ku sheegtaa describe one time of you face challenge xilli challenge ama caqabad lamid caqabadaha soo martay caqabad ku soo martay aad xallisay aduu adeegsanaya khibradaada hogaamiyadeed u adeegsanaya problem noocaas baa soo maray oo arrimaha noocaas oo racbiilaan baa dhacday kan baa dhacay anigu adeegsanayo aragtideeda hogaamiyadeed waxaan isku dayay arrintii inaan xalliyo anigu kaashanay kan waxaabaa lamidkan qodob kaloo xiga resume waxaa laga doonayaa qofka inuu diyaariyo CV-ga inuu diyaariya laga doonayaa CV-gaas oo ah hal page keliya isagoo ayaa laga doonaya inuu CV-gaas diyaariyo nidaamka qofku qorayna halkaan ayay ku qoran tahay sidoo kale waxaa laga doonayaa letter of recommendation waxaa laga doonaya waraaqada recommendation qof recommend inuu ka bixiyo macalinkiisu kale inuu laba waraaq baa laga doonayaa ama laba macallimiintiisa ka mid ah ama laba maamulkiisa inay ka bixiyaan qofka kan waa qof dhaqan ahaan iyo ficil ahaan wanaagsan inay ka bixiyaan credit garayaan ama amaanaan laga doonaya waraaqada qofka bixinayana waa inuusan noqon saaxiibka iyo family memberkaaga waa inuusan noqon sidoo kale waxaa laga doonayaa recommendationska qofka dadka bixinaya taladaasna waa inay ku sheegaan magacooda positionkooda iyo xiriirka ka dhexeeya qofkan meesha isku bartay macnaha macalinkiisaan ahay kan baan ahay inay meesha ku caddeeyaan haddaba confirm haddaan ada safe dhahdo micnaheedu waxaa waan ogolahay dhammaan shuruudahan waan kasoo bixi karaa wey sidaa ayay noqon doontaa insha allahu tacala waxaan rajaynayaa inaad fahanteen kadibna aad soo gudbin doontaan dhammaan shuruudahan kan haddii aad isleedahay inay kuga adag tahay waxaad doonaysaa in lagaa caawine waynu kaa caawin doonaa programka xiriintiisa qiimaha aad bixin doontana waa qiimo aad u jaban insha allahu tacaala nala soo xiriir si aan kula wadaagno si aad uga faa'iidaysato programkan insha allah